waxaa farxad weyn inoo ah maanta in fagaarahan aan kula kulanno mujtamaca madaniga Soomaaliyeed oo ka kooban culamaa u diin iyo odayaal iyo dhalinyaro iyo haween iyo indheergarad kulankan wuxuu muujinayaa codsigiisu wuxuu ka yimid dhanka bulshada rayidka oo idinka matalaysaan saa darteed wuxuu muujinayaa in dareen xoog leh idinku jiro oo ku saabsan sidee wax u socdaan, sidee wax yihiin, maxaa ku biiran kartaan, maxaa talo ka geysan kartaan. xaqiiqatan shucuurkaas wuxuu ka tarjumayaa shacbweynaha Soomaaliyeed shucuurka uu qabo ayuu ka tarjumayaa. mar haddaad tihiin codkii shacbweynaha waxa uu qabo uu ku soo gaarsiin lahaa meelaha kala duwan ee uu daneynayo shacbweynaha oo ay ka mid tahay wadaxaajoodka Soomaaliya iyo Somaliland oo ugu ah qadiyadda ugu weyn ee maanta Soomaaliya ama shacbiga Soomaaliyeed guud ahaanba haysata, waan idinkaga mahad celinaynaa. xaqiiqatan ummad ama shacbi hor uma socdo hadduusan dareen hogaaminaynin. dareenka hadduu hooseeyana waxqabadkooda waa hooseynayaa, dareenka hadduu sare kacsan yahayna waxqabadkooda sare ayuu usoo kacayaa. idinkagama sheekeynayo Soomaaliya 1991 iyo wixii ka dambeeyey ilaa haatan xaaladaha kala duwan ee ay ku sugnayd ama hadda ay ku sugan tahay. waxaan la daalaa kufeynay oo la daalaa dhaceynay waxay ahayd sidee nabad loo helaa, sidee dowladnimo loo yagleelaa. 14 iyo wamaazaad oo shirar ah ayay naga qaadatay sidaan dowladnimadii u yagleelno oo ay u noqoto mid caalamka naga aqbalahaya. qori kuma iman, xoog kuma iman, waxay ku timid wada hadal iyo wada xaajood dheer oo 2 sano loo fadhiyay Nairobi kuwa kasii horeeyey oo Qaahira ku qabsoomay, oo Ethiopia ku qabsoomay, oo Djibouti ku qabsoomay, oo Yemen ku qabsoomay. marka waa garan kartaan wadooyinkii loo soo maray in dowladnimadan hadda jirta la yagleelo oo salka loo dhigo. laakiin qof kastoo Soomaaliyeed oo Soomaali ah waxaa qalbigiisa ku taagnaa had iyo jeer inay wax ka maqan yihiin. dowladnimadii haddii la soo dhiciyey weli waa tukubaysaa, maxaa yeelay garab dhan baa ka maqan. haddii adigu garab shimbirka wuxuu ku duulaa 2 garbood, garab hadduu ka maqan yahay inuu fadhiid noqonayo carrada ku budboodayo nin walba waa iska caddahay, iyo maruu ku faakacayo iyo maruu maaragtay indhaha bariq ka siinaya, inay xaajadu noqonayso qof walbo moogaal uma qabo. annagana sidaas kama duwinin
haddaan qaran Soomaaliyeed nahay waxaa inaga maqan garab dhan baa inaga maqan oo aan dareemaynaa inaan la-aantooda aan si fiican u socon karin. walaalayaal, mar rabo khudbad dheer inaan galo. guddigan marka waxaa loo sameeyey inuu waddada wadahadalka uu ku raadiyo sidii xal waara looga gaari lahaa arrinta Somaliland, xal waafaqsan midnimada, wadajirka, waalnimada, dowladnimada, qarannimada Soomaaliyeed in la gaaro, inkastoo aragtida ay kala duwanaan karto iyo si kastoo ay u kala fadhiisanaan karto. walaalayaal, waa naga go-i weyday Somaliland ogooni u istaagin, waa naga go-i weyday. intaasoo sanaa la soo maray. subaxdii iyo aroortii haddaan soo kacno waxaan isweydiinaynaa maxaa soo yeeray, maxay dowladdii qabatay. dadaalkayna waddaniga ah maalin walba haddii qofka Soomaalida aan fiirino waxaa weeye gudahan maxaa ka soo yeeray, Somaliland maxaa ka soo yeeray. shacbiga Soomaaliyeed waa ku mahadsan yahay dareenka fog ee uu arrintan ka qabo. annagana sidaad war u haysaan, madaxweynaha waa markii ugu horreysay guddi si rasmi ah inta loo dhiso oo loo xil saaro arrintaas inay diraasad kusoo sameeyaan, kulamo kala duwan shacbiga guddigaas uu la qaato, aragti isweydaarsi inay dhacdo, taladoon in la noqdo, oo wax alla wixii shacbiga Soomaaliyeed ku jiro qeybihiisa kala duwan ee tala ah in la baadigoobo si aanu uga miro dhalino wadaxaajoodka aan la gelayno walaalahayna Somaliland. carabtu waxay tiraahdaa walikulli xisaanin kabwa. faras markuu dagaaltamayo ama uu soconayo aan ku feynin ma jirto, laakiin waa kufaa waa kacaa farasku. kama liidino waxaa nagu dha faraskaas waxaa nagu dhacay, kama liidino inaan kacnana waajibay nagu tahay. xaaladaha adduunka ka jira waana khasbaya, dareenka soo koraya ee waddanka gudihiisa geeska gees ka jira ayaana khasbaya. isbedbedelka adduunka nagu heeraarsan ee gobolka aan ka tirsannahay ka midka ah ka dhacaya ayaana khasbaya. marka intaas haddii la isu geeyo waxaa waaye in waxaan u ciirsanaba inay noqdaan wadahadal, 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 wadahadal. Soomaali ma kala maqnaan karto. waad arkaysaan shucuurku isugu xiran yahay. in maantadan aan idinla hadlayo wafdi ka socda bulshaweynta Somaliland inuu gargaar la soo gaarahayo shacbiga walaalihiina ee walaalaheenna ah ee Soomaaliyeed ee ku tabaalaysan Hiiraan, khaasatan beledweyne.
waxaan u baahanahay shucuurkaas in la dhiso, sare loo qaado, oo la gaarsiiyo isu soo helow kan ka weyn iyo dowladnimo mid ah iyo isu soo noqosho in la gaarsiiyo ayaan u baahanahay. warka ma rabo inaan dheereeyo, badankiisa xaggiina ayuu jiraa. annaga hawsha naloo igmaday waad garanaysaan, waxa waaye inaan tala raadino, soo ururino, ka bacdi talooyin kasii bixino oo aan madaxweynaha aan hor dhigno ama dowladda Soomaaliyeed guud ahaan. marka tala idinku baa maartay maanta la jirtaa. walaalayaal, sidii hore ha yeelina, su-aalo yaan waqtiga lagu dhamaynin, halala yimaado maskax maaxsan oo soo tufaysa wixii talooyin ah oo lagu hirgelin karo wadaxaajoodka aanu ku guuleysan karno oo na gaarsiinayo walaaltinimo iyo wadajir iyo isu soo helo iyo isu soo noqosho. anigu hadalkayga intaasaan ku khatimayaa.